ليسوا ولا كذي يتسبر دهايا لا نياهي كما ليس سارة لتسود ويا رمتا لقى السقايا مقاصر الله قيسري كتف ليسوا كما ليس راد ليسوا ولا كذي لتسبر دهايا جلالا نياهي كما ليس سارة لتسود ويا رمتا لقى السقايا الدنيا بكرية عاد بسيدة بنتيشة وثقافة كما ليس كتيرة وانا شغالة تتقضى حساباتها رسول المولية بسم الله الرحمن الرحيم. وينو بلابنا إنا شركي وحا شركا سوق بنقابيي USB oo ka kooban Khaatumo Awdal iyo Maakhir iyo Puntland State iyo Jubaland State saabka okay sidii caadada islaamka u ahayd waxaynu ku furanaynaa aayadaha quraanka waxayna inoo furaya Maxamed Nuur Cabdulle Sheekh Maxamed soo dhow شيخ محمد نور عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وحين عاوي سقنمي waxaynu caawa isugu nimi inaynu toosino xoojinta midnimada qaranka Soomaaliyeed oo laba taabtaan ah dhawrista dastuurka iyo shuruucda qaranka u yaala oo hadda lagu tuntay cadaalad darrada ka taagan qorista hay'adaha amniga ay ugu horeyso booliiska xoogga dalka iyo nabad sugidda iyo wixii la mid ah ku tagrifalidda sharci darrada ah oo ku saabsan maamul lacageed sida shaqaalaha madaniga ah mucaawimada magaca Soomaaliyeed lagu soo qaado oo aan qaybtooda laga siinin gobolada Sool iyo Sanaag uburinta dadka degan Awdal oo raba midnimo Soomaaliyeed iyo soo magacawga rag kale loo magacaabo inay raalli ka ahayn ixtiraamka dhowriska dadweynaha raba inay dhistaan maamul goboleedyo ku salaysan dastuurka federaalka sida Jubaland mawduucyada aynu ka hadlaynaa waa sida odayadii siyaasiyiinta ah jooga waxaa marka u horeysa jooga egas xildhibaan Cabdirasaaq Sanweyne egas xildhibaan wasiir ruugcadda Cawad Axmed Cashare أحمد عمر
سعيد دفوتشي أحمد حرسي قراد دغر أو شبلان وهدلية iyo Sucaad oo dumarka u hadlaysa marka waxaan u yeedhayaa marka u horeysa egas xildhibaan Cabdirasaaq Sanweyne oo ka socda USB solo bismillahir rahmaanir rahiim aad ayaan u salaamayaa ciddii soo qaban qaabisay ama intii ka soo shaqaysay fikirkan aynu isugu nimi ee lagu badbaadinayo qarannimada haday tahay Puntland State USB oo ka kooban Khaatumo Awdal Maakhir iyo reer Jubbaland intoodaba qarannimada Soomaaliya runtii waxaad moodaa ummadda yididiilaa gashay markii ummadda Soomaaliyeed ay heshay baarlamaan Soomaaliyeed oo ay doorteen madaxdii dhaqanku ay soo xuleen ee la isaga keenay dalka Soomaaliyeed oo dhan yididiilaa ummadda Soomaaliyeed gashay markii baarlamaankii caynkaas ahaa uu doortay madaxweyne Soomaaliyeed oo ka mas'uula dawladnimo rasmi ah intii ka dambeysay intii qarannimada Soomaaliyeed ay burburtay waxaad moodaa yididiiladii ummadda Soomaaliyeed gashay inay aad mugdi hadeer ugu jirto oo madmadow badan iyo rajo xumo badani ay soo gashay runtii sababaha iyo waxa keenay ayaa sababay inay dadkan isu yimaadaan laga wada hadlo wax la iska weydiiyo sidii wax loo sixi lahaa ee qaranka Soomaaliyeed loo badbaadin lahaa ee looga wada tashan lahaa ee mas'uuliyadda qayb looga qaadan lahaa in laga wada tashado la isuguna yimaado anigu waxaan ku bilaabayaa runtii madaxweynaha Soomaaliyeed ee la doortay waxay ahayd waxa ugu horeeya ee laga rabay inuu ilaaliyo dastuurka Soomaaliyeed haddii dastuurka dawladnimadu ku dhisan tahay shuruucdu ay ku dhisan tahay dalka maamulkiisa iyo itijaaha hanaqaadkiisu intuba ay ku dhisan yihiin aad ilaalin weydo macnuhu wuxuu noqonayaa waad la marin habawday qarannimadii Soomaaliyeed ta aynu rabno maanta inaynu badbaadino ummadda Soomaaliyeedna aynu fariin uga dirnaa waa taa weeyaan madaxweynaha Soomaaliyeed markii la doortay waxaan xasuustaa tallaabooyinkii ugu horeeyay ee uu qaaday waxa ka mid ahaa waraysiyadii iyo shirjaraa'idadii uu qabanayay ee tilmaamaha koowaad ee uu ka bixinayay ay ahaayeen macaamilka uu kula dhaqmayo maamulka waqooyiga inta Siilaanya xukumo madaxweynaha Soomaaliyeed isagoo aan 10 cisho joogin ayuu wuxuu qiray in Somaliland ay tahay dawlad la siman dawladda federaalka Soomaaliyeed ee qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed wada leedahay taasoo uu meediyaha ku sheegay madaxweynaha Soomaaliyeed wuxuu hambaliyo u diray dawladda markaa isagoo ku tilmaamaya dawlad maamulka Siilaanyo isagoo uga hambaliyeynaya doorashadii dawladahooda hoose that day uu u hambaliyeynayo waxa ka taagan Sool iyo Sanaag iyo Awdal dib iyo dagaal iyo gaboodyo ay fulinayaan dadka uu u hambaliyeynaya ayaa maalinta ka taagan macnuhu wuxuu ku tusayaa in maalintaaba ay leexatay mas'uuliyaddii iyo wixii lagu aaminay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intaa waxaa soo raaca oo isa soo tarayay oo maalin walba uu tallaabadii adag ka sii adag uu ku sii qaadayay wax uu mudaro ah ummadda Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliyeed sidii ay hana qaadi lahayd waxaad moodaa madaxweynaha Soomaaliyeed
inuu uga campaign batay ama uga shaqo batay kuwii kala go'a doonayay ee midnimada Soomaaliyeed kala dhantaalayay inuu uga shaqo batay oo uu uga waxtar batay oo uga soo dhaweyn batay oo uu waxoodii la doonay kuwii midnimada difaacayay ee qarannimada ilaalinayay ee u dhimanayay taa macnaheedu waxay ku tusaysaa madaxweynuhu inuu yahay nin si gaar ah wuxuu wada oo aan hayn mas'uuliyadii ummadda Soomaaliyeed ay ku aamintay waxa inta soo raaca oo calaamado la taaban karo u noqon kara madaxweynaha Soomaaliyeed mudarooyinka uu sameeyo madaxweynaha Soomaaliyeed ummad tashatay oo Soomaaliyeed oo si wada jira u tashatay oo istaydadoodii raba inay dhistaan oo ay kow ka tahay ay ka yihiin dadka reer Jubbaland ee isugu yimi Kismaayo ee boqolka madax dhaqameed ay goobjooga ka yihiin ee reer kasta oo dega Jubbaland ka mid ee ay waxgaradkoodii joogan ee ay siyaasiyiintoodii joogan ee ay mas'uuliyiintii kale iyo wixii ururadii bulshadu intuba ay joogan ee qurba joogoodii u joogo ee ku soo tashaday inay dhistaan iyagoo raacaya dastuurka Soomaaliyeed maamul ay leeyihiin madaxweynaha Soomaaliyeed wuxuu ku tilmaamay oo ku celceliyay oo aan mar ahayn oo aan laba ahayn oo khudbadii ugu dambeysay ee baarlamaanka uu ka sii daayay ay ugu dambeysay in aanu aqoonsanayn dadka halka ku tashanaya ee dhisanaya maamulkooda ee aan dhibaato ka iman oo uu leeyahay ma aha wixii la rabay dad baa cabursan haddii ay dhici lahayd ama aynu arki lahayn ama media aynu ku aragno ama aynu si kala ku aragno dadka meesha degan oo aynu wada naqaano in cabasha ka timaado ama ay muujiyaan calaamado la xiriira in la caburinaya waxay noqon lahayd inaynu waxaynu qaadano aynu raahno war waxa uu sheegay madaxweynuhu waxba ka jira inaynu markaa ayna gasho ma ay dhicin taas waxa jira oo haddaynu arki lahayn shiikhaal cabanas gaal jecel cabanas cawramale cabanaya daarood cabanaya reeraha daarood kamida reera kamidoo cabanaya oo le war meesha waxa ka taagan cadaalad darro dadkii baa la caburinaya xoog baa lagu haystaa dhismaha raalli kama nihin baajuun cabanasa oo qaylo afka ka qaaday haddaynu arki lahayn waynu garaabi lahayn madaxweynaha Soomaaliyeed ma jirto isagoo kuwii sidaa wuxuu dhisanayay ee dastuurka iyo sharciga ummadda Soomaaliyeed u siman tahay raacsanaa ee rabay inay ku dhismaan dabadeedna ay dawladnimada Soomaaliyeed kaga qayb galaan isagoo sidaa u diidan oo uga hor imanaya wax kastaba isagu ha doonay ayuu wuxuu taageerayaa kuwii qarannimada duminayay oo uu isagu ka horeeyo ee midnimo la'aanta Soomaaliyeed rabay ee dadka midnimada raba ee gobolada USB ee Maakhir iyo Awdal iyo Khaatumo caburiska ku hayay ee dilka ku hayay ee dhulkoodii bar jooga ee gaboodyada aan caadiga ahayn kufsiga leh ku hayay ayuu taageersan yahay leeyahay waxay ku taagan yihiin wada sax kuwii wax dhisanayay ee tashaday aan cabashadu ka iman ee ay Jubbaland u horeysay dastuurka waafaqsanaana wuxuu leeyahay waa niman aan marin wadadii loogu tala galay taasi waxay cadeynaysaa inuu number 1 dastuurkii qaranka Soomaaliyeed wada lahaa uu meel kaga dhacay jabiyayna khiyaamo qaranna ay noqonayso waxa kaliya ee maanta la oran karo madaxweynaha way u taala ama waa laga hadli karaaba inta marka laga gudbo waxa madaxweynaha Soomaaliyeed uu abaabulay oo isagu ka shaqeeyay oo campaign u galay in shirki Turki la isugu yimaado shirka macnihiisu wuxuu ahaa inuu ku taageero oo uu qiimo ugu yeelo dheeriya maamulka Siilaanyo taasoo aad ka garanayso communique-gii shirka ka soo baxay ama wixii lagu heshiiyay waxa shirka London lagaga heshiiyay oo madaxweynaha Soomaaliyeed hormuud ka ahaa
midnimo la'aan Soomaaliyeed iyo in qaranka Soomaaliyeed kala go'o taasoo uu si wacan uga turjumayo 7 qodob ee heshiiska qodobka 3 oo oranaya waxa heshiis wada galay laba daraf oo kala ah dawladda jamhuuriyadda Somaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliyeed waxa heshiiska qodobkiisa 3 oranaya waxa la isla aqoonsaday oo la isla xaqiijiyay oo la isla qeexay in dawladda jamhuuriyadda Somaliland ay ka mas'uul tahay dalkeeda iyo dadkeeda dawladda federaalka Soomaaliyeed oo darafka kale ahina ay ka mas'uul tahay dadkeeda iyo dalkeeda taa macnaheedu waxay noqonaysaa laba dawladood oo siman oo mid waliba dalkeeda iyo dadkeeda ka mas'uul tahay taana waxa goobjoog ka ahaa oo saxeexay oo fuliyay oo ka soo shaqeeyay madaxweynaha Soomaaliyeed waana qarannimo dumisnimo iyo wixii loo dhaariyay ee lagu aaminay oo uu baalmaray iyo dastuurkii Soomaaliyeed uu jibiyay waxa mudarooyinka kamida maalinba isa soo taraya sida madaxweynaha Soomaaliyeed uu ummadda Soomaaliyeed sidii wax loo qaybsan lahaa ama saamiga dhaqaalaha noqdo ama imkaaniyaadka adduunyada ka imanaya international community ha noqoto ama saamiga wax qaybsi ee dawladnimada noqoto wuxuu ka gelayaa ama hadeer lahaya oo cadeymaheeda markii la doono la ssoo saaraya si aan waafaqsanayn sidii ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay inta laga baxayo waqtiga 4.5 ka 4.5 ki ayuu wuxuu ka galay balance-kii 4.5 ka ayuu lumiyay wuxuuna wax walba ka dhigay in uu dhinac gaara u buriyo wuxuu maamulka Hargeysa madaxweynaha Soomaaliyeed u saxeexay oo loo ogolaaday oo heshiiska Turkiga kamida in mucaawimooyinka gaar loo siiyo oo ay mucaawimooyinka qaataan taasoo ay hore u jirtay imkaaniyaadka iyo mucaawimooyinka ay qaataan ama international community-ga ka yimaada inay ugu isticmaalaan dadka gobolada Maakhir Awdal iyo Khaatumo hub iyo dagaal iyo inay ku dhibaateeyaan iyaga wuxuu sii xoojiyay inuu isagu ogolaado intii ay sii socoto wuxuu wax ka aqbalay oo uu ogolaaday tababarada military iyo hubka in la iska kaashado taasoo macnaheedu noqonayso dadka hadeer dhibaatada lagu hayo inuu dulmi iyo xoog iyo uu ku sii kordhiyo dagaal sii socda iyadoo waxa soo dheeni ay jiraan wuxuuna ay imanayaan in qarannimadii Soomaaliyeed ay weeqanto waxaanu fariin u diranaa ummadda Soomaaliyeed oo aanu leenahay war qof kaliya kama saarna xil qarannimada Soomaaliyeed haddii madaxweynuhu xilkiisii gudan waayo inagoo aan qabiil ahayn inagoo aan kala qaybsamin war bal aynu isla eegno war hadday ka muuqato inuu sharcigii jabinayo oo xilkiisii gudan laayahay oo waajibaadkii dastuuriga ahaa uu fulin laayahay war aynu isla eegno de annagu waanu aragno waanu soo jeedinay haddii la yahay Puntland haddii la yahay Jubaland iyo haddii dadka ku midoobay USB la yahay waanu aragnay waanu soo jeedinay ummadda Soomaaliyeedna waanu u soo bandhiganaa war nala arka oo haddii aanu annagu wax dhibaato ama wax khalada ama wax gefa oo aan madaxweynaha Soomaaliyeed sameyn aanu annagu saarano wardee qabta oo naqabta oo noo sheeg haddiise ay jirto yaan la caadifadoon yaan qabiil loo rogin qarannimada aynu wada badbaadin haddaynu wada badbaadin weyno dee waxaynu ku noqonanaa waxaynu ahayn haddaynu ku noqonana nin waliba reerkiisii ayuu noqonayaa marka anigu waxaan ku soo koobayaa shirka London oo aad moodo isaguna inaanu waji fiican ku bilaabmin oo la mid oo u muuqdo inuu la mid noqonayo kii Turkiga waxaanu leenahay international community-gu
hoos waxa u eegaan aad hoos waxa ugu eegaan sida ay rabaan baanu rabnaa in qarannimada la badbaadiyaanu rabnaa weli Soomaali may gaadhin inay isku xukunto law and order sharciya oo ay u siman yihiin oo loo kala dambeeyo halla eegaan hoos ha u eegaan taasaanu raalli ka nahay aad baadna u mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq intii yareed oo aan halka fadhiyey ayaa laba kelmadood oo gabay isu geeyey niman reer jirdaliyada ay dhalay oo gabayga yaqaana intii uu cabdirasaaq hadlayay markaa waxaan kuwii kaa dhigay iyo darajo aad gaadho inaad goosata waa halaan kula gudboonayne mar hadday gurigaagii kale guushu ka hilaacday gondo uga deg xaajada ha maqal gaada muujahe intaasaan ku dhaafayaa af Soomaaliga waa Jubbaland baa intaa tiri Jubbaland baa tiri intaa waxaan hadda u yeedhayaa siyaasiga ruug cadaaga ah oo 60 sanadood siyaasadda ku soo jiray Axmed Cawad Cashare ku soo dhow xaaji السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا أهري إلهي توفيق ده النوافجيو ومدى الصوماليادنا إلهي طريقة سنهاتسو ميل هوا ضمريو دبتي يكون جرتنا إله بان كبرينا إنه إنك سارو وقلبي جن يسوع جديو سيدو شيء شركة سوق سعنايي وعن جعلها هنا نكسعده سب شركة أجندهيس marka ugu horeeya shirku wuxuu ku furan yahay horta aad waxaan anigu mahad ugu soo jeedinayaa hawsha dastuurka dadkii Soomaalida indhaha oo furay oo tusay marka ugu horeysa aad baan ugu faraxsanahay Puntland stepka ay ka qaaday dastuurka horta marka ugu horeysa sababtoo ah arrinta ay soo saareen waa arrin culus oo qaranka Soomaaliyeed waxa uu ku dhisan yahay dastuurka دستور واحد لقوا بدل كراسي صوص عتا مادة كسته مركا يسوي ديان صدق ميلود وميل بارلمان كاجرة مركا لقى صاروا دتك استقالة دبحية يدتك الدنتي يدتك محكمة يسوقيسو مركا لقى صاروا ترى دودا صدق ميلود وميل بسوي دين كرتا إني مادة اللي بدلوا صار دقايو وحدي مادة دا إن اللي بدلوا موشن كان لسوي دي وحقولان كلا لبم ميلود صدق ميلود لبم ميلود ayaa baarlamaanka markaa ogolaan karta markii halka gaadho madaxweynuhu ma celin karo markii awoodda labada meelood ay gaadho always madaxweynuhu ma celin karo marka amendmentku waxa weeye arrin loogu tala galay inay socdaan waxaan amendmentka bedeli kara marka dadweynaha loo bandhigo waxa weeye arrin serious ah marka oo walaalkay soo sheegay keenaysa khiyaanada cudma high treason bay keenaysa waxay keenaysaa madaxweynuhu waa ilaaliyaha dastuurka hadduu isagu qaban waayay sidee baa lagu qabtaa way issue dadweynaheena saa isu tagaya Supreme Court-keen warqad u qorayna waxaanu leenahay dastuurkii baa forgery lagu sameeyay falsification baa lagu sameeyay dastuurkii waa in ma aad saxdaa maxkamaday dastuurna qodobka sida ay Puntland soo saartay aniga Puntland waxaan u arkaa inay tahay xajarka asaasiga ah oo maanta reerka jira magaciisa soo celisay wax kasta maamul ha ahaado marka waxaan leeyahay dastuurka arintiisa meeshaas aynu ku soo geenaynaa nidaamka loo maraa nidaamkaas way madaxweynaha waxaan u sheegaynaa inuu degdeg talaabo u qaado hadduu qaadi waayo isaga ka mas'uula oo waxa custodianka u yahay isaga dambigeeda leh hadal midka qodobka kale aan ku darayaa waxa weeye sida walaalkay sheegay madaxweynuhu takarfad madbuu sameeyay madaxweynahan waxa weeye ceremonial maaha madaxweyne Obama oo kala oo dad soo doortay waxa weeye nin baarlamaanka hoos ay doorteen ninka saasana waxa uu leeyahay awoodiisu wax kasta waa inay dawladdu soo ogolaataa xooga waxa leh nidaamka aynu la ku jirno baarlamaanka iyo xukuumadda ayaa awood badan leh
maxaa jira baarlamanku waxa uu ku soo diido waxa lagu jabinayaa 65% baa baarlamanku ku jabinaya tuutar ku jabin ma 65% buu ku jabinaya awoodda madaxweynuhu intaasayba ku egtahay marka waxa weeye ninka kanu waa dalfay maxay tahay xukunka iyo nidaamka marka conflict of interest baa meesha ka muuqata oo meel ka dhac lagu sameeynayo gacantii fulinta oo xuquuqdeedu la dhacayo wiilkeena meesha la geeyana waa ka xunnahay sidoo u dhaqmay iyo meesha uu maray maxay tahay markaan u soo noqdo sidoo sheegay walaalkeen waa lama tabtaanka kala go'a Soomaaliyeed mana aha ummadda Soomaaliyeed bay u taala Puntland qura uma taalo soo maxay ahayd khaatimo iyo maxay ahayd maakhir iyo awdal uma taalo qura waxay u taala Soomaali oo dhan waxaan aanu codsanaynaa Soomaalidu inay garab ka bixiso arintaas qodobka igu xiga waxa weeye cadaalad darrada dadka lagu shaqaalaynayo macaamada dibadda laga helo ciidamada maanta dhisan oo xamar ka dhisani waxa weeye ciidamadii warlordskii xamar maleeshiyadeedii weeye waxaanu markaa sheegaynaa qaadista hubka la qaadaya inay xaaraan tahay oo Soomaaliya lagu celinayo 19 ishubayn wiil daran oo magac kale wadaana inuu jiro wiil kale oo magac kale wadaa oo geele la yiraahdana inuu jiro oo Soomaaliya lagu jiidkeeda ka shaqeeya aan hawl kale ku maqnayn marka Umar Geele waxaan ka xumahay Djibouti xorriyad inay hesho annaga sabab u ahayn ciidamada yada Soomaalida afkooda la bari jiray say food u bixin lahaayeen markii food ku dhacay ciidamo annaga leenaha food gareeyay oo food ka bixiyay markii Faransiiska la kicinay daaraha ka dhisan lacagtii lagu maalgeliyay oo Soomaalidu ahayd way Soomaalidu 8 milyan bay hadda ku leedahay lacag kaash oo siyaad bari Allah u naxariisto xukuumaddiisu ka tagtay marka waxa weeye dadkii sida ahaa maanta meeshu ka shaqayn lahaa Soomaali inuu walaalayo ayuu ku abuurayaa qabiilkii baabi'iyay waa ka xunnahay arintaas oo geel la wado faar geel la wado waxaan leenahay gurigaaga hagaaji gurigaaga hagaaji dadka xidhaysana jeelalka ku jirana waa walaalaha ay ka soo daa waxaan qodobkaan u soo noqonayaa waxa weeye qodobka ugu dambeeya aniga qodobka waqti baynu ku jirnaa adag habeenimo joognaa fariinta aan diraya waxa weeye baarlamanka nimanka ku jira oo soo ka tirsan Puntland iyo maxay ahayd 61% labadiyo 60 ugu jira deegaanka dadka ka soo galay 60 ugu jiro ama ka yimaadeen Puntland ama meel kale ka yimaadeen waajibku waxa weeye inay shirka ka baxaanin oo yimaadaanin meeshay rabaaniin ku shiraaniin adduunkana u sheegaanin in sharciga meel laga dhacay haddii kale nimankaas xuquuqdii aanu lahayn bay duutiyeen iyagana waxaan u qaadanaynaa niman u shaqaynaya maxay tahay wiilkan aanu Soomaalida madaxda oo marin habaabay oo aanu markii hore gacanta siinay maantana noo muuqtay Soomaaliya inuu god ku ridaayo inay marin habawgaas raaceen baanu aragnaa waxaana ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaba inuu kaco oo dantiisa dadkiisa ilaaliyo oo qabsado Puntland waxaan ku leenahay Puntland maamulkan ha la hagaajiyo meel sana ha marto salaamu calaykum waraxmatullaahi nin mujaahida oo dabagooye la oran jiray oo dagaalka Ethiopia 77 markuu ku sii socday oo ku dhintay ku shahiiday intii uu dhimanin markuu sii socday wuxuu yiri calankayga nuurow haddii aanan soo noqon Allah ayu ku nabadiya saabay mujaahidka u saabay ilaahay una waxa weeyaan raggii sida u dhintay oo calanka u soo shahiiday ayaa dad aan soo shahiidanay maanta siday doonaan ka yeelayaan lagama yeelayo no iminka waxaan u yeelayaa Ahmed Umar oo ku hadla magaca USB usnag oo annaga horta israacsanayna awdal USB na awdal state
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارة الصومالية دمانتم بواني السلام يا انتا كود هوريسانا بل waxaan xamdiyeynaa horta ilaahay na abuuray isagu adduunkan ina keenay baan horta u xamdiyeynaa inuuna suurto geliyey caawa inaan halkan iskugu nimaadno alxamdulilaahi rabbil caalamiin inta ka dambaysa anigu waxaan yar dul mari bal oon isxasuusinaynaa bal madaxweynaha Soomaaliyeed iyo baarlamaanka Soomaaliyeed in habka ay ku yimaadeen iyo inay ka duwan yihiin kuwii hore marka iyo waxa ka halowsan iyo waxa ay garab mareen marka waxaan xasuusanahay in baarlamaanka Soomaaliyeed ee maanta jooga ay salaadiinta ummadda Soomaaliyeed ayaga soo xuleen halka waxa ku cad codka ummadda Soomaaliyeed inay meesha ku degeen marka ku tageen waxa xildhibaan meesha joogo dhamaantood waxay garab mareen marka xildhibaanada laftoodu amba guddoonka baarlamaanka laftiisu inuu dhowro codku meesha ku tagay ummadda codkeega inuu dhowro qiimaheega inuu dhowro sharafteeda inuu dhowro nidaamkooga inuu dhowro wanaagooga inuu dhowro Soomaalinimadooda iyo wadanninimadooda inuu dhowro waxaad moodaa in laga dulmiyay marka ummadda Soomaaliyeed oo iloobeenba kuwa baarlamaanka saa waxa cadeynaya qarannimadii Soomaaliyeed ee Turkiga lagu burburiyay kolkii la iskugu yimiday maamul sheeganaya Somaliland wax la yiraahdo oo Ingiriis raacay oo waa horeba laga tagay iyo qarannimada Soomaaliyeed madaxweynaha dawladda Soomaaliyeed ay ku kulmeen waxaad moodaa inay burburisay qarannimada Soomaaliyeed inay kala goysay xildhibaanada ka damqanaya qarannimada Soomaaliyeed iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed mooshinkay keeneen waxa tuuray guddoonka baarlamaanka guddoon mooshinna waxa tuuri kara xildhibaanada tuuri kara marka waa loo codeyn karaa codku dhinacu batuur laakiin guddoonku xaq uma leh inuu ummad codkeega ku tunto marka xildhibaan ummad codkeega sida oo ummad Soomaaliyeed codkooga sida in codkiisa la tuuraa uu guddoonku diiday uu sharci darro ku diiday waa qalad weyn marka baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan leeyahay haddaad Soomaali tihiin oo xasuusantiin cidii meesha ay keentay iyo waxaad ku fadhidaan iyo sharafta Soomaaliyeed inaad qadarisaan codkii ummadda Soomaaliyeed ee meesha ay keenay qarannimada Soomaaliyeed inaad qadarisaan madaxweynaha waxaan leeyahay isaga adiga codka ummadda Soomaaliyeed baa meesha ku keenay xildhibaanadaas ku doortay marka qarannimo Soomaaliyeed baa lagu dhiibay inaad qarannimo Soomaaliyeed daryeesho ummad Soomaaliyeed oo koob iyo dhibaato ku jirtay inaad daweyso oo iyaga isku keentaa lagu gudbi sharcigooga iyo dastuurkooga inaad ilaaliso inaad walaalnimadooda ka shaqeyso in aad wacyi gelin ku samayso ummadda Soomaaliyeed oo dastuurkooga u akhrido oo ku wacyi geliso meesha aad wado oo iyaga ka qanciso baa lagu xil saaro lagu dhiib in ad beelaha isdiidana Soomaaliyeed iyaga dhexdooda maslaxayso oo maslaxa iyo wanaag iyo maxabba iyo kalgacal dhex dhigto oo wada jirkooga iyo wada dhalashadoodii ka shaqeyso baa lagu xil saaray oo mas'uuliyadeeda lagu dhiib inaad ilaalisana ummadda Soomaaliyeed waa ka sugaysid waad sa garab martay waxa kale oo ilowday in atixgeliso rabitaan shacab goboleed amba gobol ha doono ama mid dalba ha noqotay inaad rabitaanka ummadda Soomaaliyeed iyadana garab martay waa iyadana waa waxay ka mudan tahay ummadda Soomaaliyeed inaad tixgeliso oo dhowrto rabitaankooga iyo wanaagooga iyo quruxdooda iyo waxa iyagu ay rabaan inaad hormariso haddaan intaa dhaafo waxaan u gudbiyay anigu gobolladan ka yimid gobolka Awdal amba Sool iyo Sanaag gobolladan ka yimiday waa gobollo Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed lagu dhiibay iyo mas'uuliyadda lagu dhiibay waxay 18 gobol in aad tiraahdo Sool wax la yiraahdo ma jiro oo ka inkirto amba Sanaag wax la yiraahdo ma jiro Awdal meel la yiraahdo ma jiro oo ka inkirto dadnimadooda
iyo qarannimadooda iyo wadaniyadooda iyo codkooda iyo sharaftooda inaad ka aasto ood u dhiibto qabiil ka mid ah qabiilada dega gobollada waqooyi oo tiraahda iyagaa idin leh weeyaan macnaheedu iyagaa daba fadhiisanaysaan dhulkana iyagaa leh waa waxaan jirin wey dhulka ummadda degan baa leh soomaalinimaa leh ummadda gobollada ku nool baa leh waa dembi aad ka gashay ummadda soomaaliyeed ee waqooyiga degan mana iloobayno waxaanu ku qoraynaa arrinkaasi duwaanka ummadda soomaaliyeed baan ku qoraynaa waana taariikh kuu galaysa wey ummadda gobollada ka soo jeeda waa ummaddii suurto gelisay inay soomaali wada jirto ee 60kii keentay calankaa buluuga xamar keentay ee sababtay inaad qurux soomaaliyeed ku dhalato kuna waxna ku barato aqoonna ku yeelato darajada aad maanta timidna waxa suurto geliyay gobollada USB dadka ka yimid baa suurto geliyay waxay ka mudan yihiin dadkaas in aad taariikhdooda qirto ood weliba baal dahaba siiso ood iyaga u mahadnaqdo shalay waxa kuu hagayay dadka garaadada ka yimiday sool baa kuu hagay waxa kuu hagayay suldaanka iyaga ugu daaweyn ee ka yimiday sanaag waxaad ugu abaalguday ma jirtaan inaad tiraahdo marka kaamays daaylaan iyaguna kuwaas marka waxaan ku soo gabagabayn lahaa haddii aydaan garanaynin dadnimada Soomaaliyeed iyo meesha aad u socotaan ummadda Soomaaliyeed inaad u dhaaftaan meesha waayo Soomaalinimadu waa jiraysaa waana noolaanaysaa waana soo noqonaysaa laakiin ninka wajigana noogeeg qalbigana wax kala ka ma rabno waa inuu iska tago marka waxaan idinkaga tegayaa in aad fikirtaan ood u noqotaan wixii ummaddu idin dhiibatay waxaad qalad gasheen inaad saxdaan haddaad si xuweydaan waad iska dhaafaysaan meesha wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadda waxaan u yeedayaa axmed ciid oo ku hadlaya magaca السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفضل السيارتين بينا نسوسدين بنفسنا وقاتين قرني ونسر قويدا قباسن وكسوبيي سرقنا للصوصان حدثني سيارتين بينا نسوسدين بنفسنا وقاتين قرني ونسر قويدا قباسن وكسوبيي سرقنا للصوصان مجلس سماعان مجلس سماعان إلا سميسان بلغت مدادان بكي مدوبا سجمين نلوان إلا سميسان بلغت مدادان بكي مدوبا سجمين نلوان kusuway garkuu dhigay ninkii kufaan nin kalbeebay kaa qari ninka jiray wax kuu sheeg